السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan akhyaarta qiimiga iyo qadarinta inaga mudan meel walbo aad dunidan dacaladeeda kaga sugan tihiinba waxaan idin leenahay maqrimo wanaagsan, galab wanaagsan. maanta waa maalnimo sabti ah, taariikhduna waxa ay ku asteysan tahay 9 bisha 9 ee September sanaduna waa 2023. saacada geeska Afrikada barina iminka waxay garabka ku haysaa 6 maqribnimo. ku soo dhawaada cashar cusub, muuqaal cusub. casharkaygana maanta waxa uu ku saabsan yahay zawj iyo zawja oo wada sheekeysanaya luqadda Carabiga ama nin iyo xaaskiisa. sheekadayni ayaana iminka bilaabaynaa. zawjun waa ninka ama sayga waaye, zawjana ama zawjatuna waa afada ama marwada ama oorida. ninka ayaa bilaabaya. zawjun waxa uu yiri marhaban, soo dhawow. kayfa xaaluki alyawma, maanta xaalkaagu waa sidee? kayfa xaaluki alyawma, maanta xaalkaagu waa sidee? xaaladaada ka waran. zawja afadina waxay tiri ana bikhayrin, anigu waan wanaagsanahay, waan fiicanahay, shukran, mahadsanid. wa anta, adigana? zawjkii waxa uu yiri ana aydan bikhayrin, anna sidoo kale waan fiicanahay, shukran, mahadsanid. ashcuru bitacabi qaliilan, ashcuru bitacabi qaliilan, waxaan dareemayaa wax yaroo daal ah. min alcamal alyawm, hawshii maanta ayaana ka dareemayaa. wax yaroo daal ah ayaan ka dareemayaa. min alcamal alyawm, hawshii maanta ama shaqadii maanta aan magaalka ka soo qabtay ayaa in yaroo daal ah ka dareemayaa. walaakinanii hase yeeshee saciidun, anigu waxaan ku faraxsanahay biannanaa najtamicu alaana, iminka inaan wada joogno. walaakinanii saciidun, hase yeeshee anigu waxaan ku faraxsanahay biannanaa najtamicu, inaan wada kulansannahay alaana, hadda. taa ayaa farxad ii ah. zawja waxay tiri acrifu maa taqsudu, acrifu maa taqsudu, waan garanayaa waxaad ula jeedo. acrifu maa taqsudu, waxaad ula jeedo ayaan dareemayaa oo aan garanayaa. ana aydan, anna sidoo kale kuntu mashquula jiddan, aad baan mashquul ugu ahaa, aad baan ugu fooganaa bilacmaal almanziliya, howlaha guriga ayaa anna sidoo kale aad mashquul ugu ahaa. walaakin alaana, hase yeeshee hadda, faqad nastarqii, waxaan ku raaxaysanaynaa keliya ama ku nasanaynaa. nastarqii, waxaan nasanaynaa oo waan hawshii adkeed ayaan iminka firaaqo ka haysanaa oo waan nasanaynaa. wanataxadathu macan, waana wada sheekeysanaynaa. zawjkii markaa waxa uu yidhi ficlan, run ahaantii, dhab ahaantii, aftaqidtu hadihi alaxadaat alhaadiya, waxaan waaye daqiiqadahan degan macaka oo adiga aan kula hadleeyahay. aftaqidtu, anigu waxaan waaye hadihi alaxadaat alhaadiya, daqiiqadahan aamusan ama daqiiqadahan degan oo macaka adiga aan kula leeyahay ayaan waaye. macnaheedu waxa waaye waan kuu xiisay waay. ee kayfa kaana yowmuki, sidee buu ahaa maalinkaaga? kayfa kaana yowmuki, maalinkaaga sidee buu ahaa? hal xadatha shay-un mumayaz, ma waxaa dhacay wax gaar ah? hal xadatha shay-un mumayaz, wax gaar ah oo dhacay miyaa jira? halkaas waxaa ka maqan calaam su-aal. zawjadii waxay tiri yowmii kaana musdaxima, yowmii maalinkayga kaana musdaxima, waxa uu ahaa mid mashquul ah
وعريري جدا ولبا سئاد أيو مزدحمها أو مشغولها لكنني أتجاوز ذلك هصي شيء أتجاوز ذلك وأنك قد بياتها أحسست بالسعادة أنا وحان دريمي فرحة يقول عندما تمكنت كدي مركي إي صورة قشوة عندما تمكنت مركي أي صورة قشي من الانتهاء لما انت أما قبقبينت أما لما يسترك من المهام هوله وحيابي مهم كأها التي كنت ملتزمة بها أو أهيد أما يحل صارت أنيقا وحي أنيقا ملتزم كأها أما قصب كيقوها إنا نقبتو مركي أن دمي أو قبقبي أيان دريمي فرحدوا أحسست بالسعادة وحان دريمي يقول فرحات عندما تمكنت مركي أي صورة قشي من الانتهاء إنا لما يسترو من المهام وحيابه مهم كها هوله مهم كها التي كنت ملتزمة بها وأنا نقول حصارنا أما قصب إيقو هيد إنا لما يسترو زوجكي وحا وجير مركا أنا سعيد أنيقو أنكو فرح صنعي لسماع ذلك تا إنا مقلو أنت دائما أذيقو هاد يجير تبذلين وحاد بحينيسا قصارى جهدك لذلك أنت أقبضا في كل ما تفعلينه دمان وحاد قبنيسو يا لذلك دنكو بحسا أريد أن أشكرك وحان دونيا إنان كاغا مهد عليو على العمل الجاد هولها أذك والتفاني يدذلك الذي تبدينه أتكب حنيسو في رعاية منزلنا إلى أنت يدورد قرقيا يو عائلتنا يقويسكيا ذلك يجهدك أتكب حنيسو تانو وان كاغا مهد علينا سدا أيو يري زوجكي intaasna waxay ahaayeen wada sheekaysi u dhaxeeyay zawj iyo zawja wada sheekaysigoodana waxa uu ku baxayay luqadda carabiga inaguna inta ayaanu ku soo koobaynaa wada sheekaysigaasi waxaadna kala socoteen channelkani Reexaan Channel meel walba aad joogtaanba waxaan idin leenahay maqribna ma wanaagsan galab wanaagsan intaan casharkiisa xiga aynu wada kulmi doono dhamaanteeda waxaan idin leenahay isma dhaafno nabaadiino noola kulante wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh